زكاة الفطر وحير رسولك عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر بحديث كاس وريي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر ذكر أو أنثى من المسلمين ويه رسولك إلهي وحو فرض يالي زكاة اللي زكاة الفطر زكاة الفطر والإياها صدقة الفطر والإياها وهي صدقة دوسة فرض يالي زكاة الفطر حديث خاص وهي رسولك عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين زكاة الفطر اللي يراها وحلو فرض يالي طفكي صومنا أي وحي وطعي تظهير صومكي سخر كي قلي أما اللغو أما الرفث أما وحي قلي أي الوك بيا سيدة صلاة هذا هدو خلق سهوي يقلو سجود سهوي لوغو كبو أو كالي أي أولمي تاي صومكي كبيتا وطهرة وطعمة للمسكين مسكين عنته وطهي مسكين كانوا عنته marka laba qof baa ka wada faa'iideysanaysa zakaatul fitri mid weeyaan waa qofkii soomana oo wixii khalal ahayo soomkiisii galabay u kabaysaa midna waa qofka miskiinka ah oo maalinka la siinayo ee farxadda kaga qayb galaya muslimiinta maxaa yeelay intii kalaba ayaba waa farxsan yihiin miskiinku waa inuu maalinka wax ka farxo adiga iyo carruurtaadu inaad farxdaan masaakiinta aan waxba la siinin ma noqonayso marka sidaa darteed zakaatul fitri saasaa loo farad yeelay masaakiinta la siinayaa masaakiinta yaa la siinayaa waxaa la bixinayaa ayada wakti la bixiyo jaa-isii waa jira bisha ramadaan oo dhan waa la bixin karay wakti sunno ah oo in la bixiyo ay sunno tahayna waa jiraa waa intaan salaada ciidda la aadin maalinka ciidda waajib bay noqonaysaa sunnaheeduna waa intaan salaada la aadin in la bixiyo marka kalena jaa-is bay noqonaysaayo marka salaada laga soo noqdo ilaa gabal ku dhacayo waqtigeedu waa joogaa laakiin maalinka hadday ku dhaafto waa qaday noqonaysaa xaraam baanad fuulaysaa haddii aad heli kartid waxaad ka bixinaysaa adiga naftaada iyo inta adiga nafaqadoodu kugu waajibtay intay kugu waajibtay nafaqadoodu dad badan maaha waxaa weeyaan xaaskaaga adigoo aad qabtid iyo carruurtaada yaryarka ah oon xoolaha lahayn aan qaangaarinna ama ha qaangaareene kuwa jajabano ama indhahala ama curyaamiinta oo aad dhashay oon xoolaha lahayn kuwaasna waad ka bixinaysaa addooman haddaad leedahay dee hadda addooman ma jeedee iyagana waa laga bixin jiray intaa unbaad ka bixinaysaa laakiin dadka kula nool ama dumaashiyaalka ama wiilashad adeerka u tahay ama maaragtay dad caynkaasa oo aan waajib kugu ahayn nafaqadoodu zakaatul fitrigooduna waajib kuguma ah sideedaba nafaqada kugu waajibtaa waa xaaskaaga hadday naashiza ahayn ay mudeeco tahay iyo carruurtaada yaryarka ah oon weli qaangaarin oon xoolo lahayn iyo waalidka oon xoolo lahayn ama aabbaha ama hooyada ama awowga ama ayeeyada oon xoolo lahayn intaasaa nafaqadoodu kugu waajib tahay intaasaad ka bixinaysaa dadka ahalkaa oo qaraabada isaga nooliyo kuwaas dee sadaqada nafaqadu waa sadaqa maaha waajib maaha zakaatul fitrigana waajib kuguma aha dad baa u qaata in allaale inta uun gurigiisa ka cuntaysa inuu zakaatul fitrigoodu waajib ku yahay ma jirto waa qofka nafaqadiisu waajib kugu yahay qofkaa ku tatawucaysid tadawuc ma lahan ayada waa qof walba maxaa laga bixinayaa waxaa laga bixinayaa sida rasuulku noo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam sax macnaa hal suus oo طacaama طacaamkaasina waa inuu noqdo beledka aad markaa joogtid shayga laga cuno shayga ugu qaalibkaa shaygaasi waa xubuub waa inuu noqdo daqiiqu kuma jiro daqiiqa burkan shiidsiidan iyo qamadida la shiiday iyo kuwaas maaha waa inuu xubuub leey ama masago ama bahalka lagu yidhaha gelley ama beriis ama masago digir ama xubuubta noocaasa ee marka meel la dhigto durba aan halaabayna la kaydin karo
quudka la yidhaaho yaa la bixinaya. tamartii xataa waa geli kartaa, timirtu waa geli karaa, zabiibku waa geli karaa. maxaa yeelay abi saciid alkhudri xadiidkii wariyey wuxuu yidhi markii nebigu nala joogay waxaanu bixin jirnay saacan min طacaam aw saacan min shaciir aw saacan min aqid aw saacan min tamrin aw saacan min zabiib yaan bixin jirnu yidhi abi saciid alkhudri. hadduu mar yidhaaho markii nebigu nala joogayna xadiidkaasi marfuuc weeye, nebigaa la gaarsiiyey. maxaa yeelay nebigu waa og yahay waxa saxaabadiisu ay samaynayaan. tani طacaamkaasaa la bixinaya. haddaynu lacag bixino maxay noqonaysaa? lacag yaan la bixin, lacag geedda la yidhaaho yaan la bixin. laba sababood dartoodba yaan lacag loo bixin. waa mida xadiidku nas buu leeyahay, naskuna ixtiraam buu leeyahay. marka nebigu uu lahaa طacaam bixiya lacag waa la haystay, saxaabadu ma lacag la'ayn. qof uu yidhi nebigu lacag bixina lama arko. saacan inuu ku hayay suus badara oo kala nooc nooca hala bixiyuu lahaa. haddii ay bannaan tahay in qiimo la bixiyo dee nebigaa wuxuu odhan lahaa intaa ama qiimahooda la bixiyo. kol hadduusan nebigu qiimo sheegin adigu ha bixini, naska ku joogso. ha igu daran qofka odhanaya anigu dee nusuustan yaan sharfaa oo xadiidkiiyo qur-aanka waxaan ahayn ma dhegaysto. marka kalena isagoo arkaya naskii inuu saac طacaama yahay ayuu leeyahay lacagtii halaysiiyo lacagtii baan qaadanaya. dee taasi naska fogaasho wey, naskii xadiidka oo laga fogaanayo weeyaan. naska ixtiraamkiisu waxa weeyaan adiguna طacaam qaado, adiguna طacaam bixi. nebigu qiime ma sheegin calayhi الsalaatu wasalaam. oo dee xadiidka inaad ixtiraamtid naskiisa yaa lagaa doonaya. haddana طacaamkii lama weyn. waa galaydii waa tuurataa, masagadii waa tuurataa, bariiskii waa yaala, timirtii waa taallaa, wax waliba waa yaala. qaaliba quuti lbeled waxa la cuno kan ugu qaaliba waxaa laga yaabaa inuu ama bariiska ama masagada ama galaydaya. weliba bariiska masagada iyo galaydaa ka fadli badan. haddii la yidhaha qiimaha xaggooda lama rabo lacagta, xagga cuntada kaasaa qaalisan. masagada iyo galaydu waa laba masagoo kala waaweyne. durrada taasaa qaali ah oo wanaagsan. maxaa la bixinayaa qofkii? maxaa laga bixinayaa? masalan laba suusi, laba bahalkii geedkaa lagu kiilo laba kiiliyo xoogaa cantooba ayaanu ku qiyaasnay inuu noqonayo. bar haddaad gaarsiiso waa khayr, laba kiiliya bar. laakiin laba kiiliya rubac inay gaarayso ayaanu ku qiyaasnay. qof walba waa laga bixinayaa. haddaad kulligood heli karta ka bix, haddii kalena intaad heli karta ka bix. adigu naftaada iska bilow, haweentaada ku xiji. haddaadan labadaa wax ka badan haynin waxba lagaama rabo. qofka laga rabaa muxuu leeyahay? hameenka ciidda iyo maalinteeda wixii uu cuni lahaa zakaatulfitri ka bixi lama leh. cuntadaa la doonayaa inuu cuno, laakiin wixii dheeraad labadaa kaca ha ka bixiyo zakaatulfitri. hadday u dhammi yihiin bas waaye, haddii kalena qaara ka bixi. qiimaha la bixinaayo aynu soo sheegnay madaahibta afarta ay way isku khilaafaan. abi xaniifa wuxuu leeyahay طacaamka ha la bixiyo ama qiimihiina waa bannaan yahay. saddexda kale waxay leeyihiin طacaamka mooyaane wax kale oo zakaatulfitri gudi karaa ma jiro. kolka haddaad tidhaaho naskii waxa waafaqsan saddexda kale, shaafici iyo axmed iyo maalik baa yaa waafaqsan naskii, qiimaha ma ogola. midda kale waxay leeyihiin طacaamkii waxaan ahayn ma gudi karo. laakiin abi xaniifa wuxuu leeyahay طacaamku sax waa gudi karaa, waa idinkula jiraa. laakiin qiimahana waan ogolahay, waa laga badan yahay. saddex iyo mid bay kala yihiin. markaas jumhuurtii meel bay isu raaceen, xadiidka lafdigiisiina meel buu isu raacay. waxa adiga lacagta kaa kalifayo oo jeebka ugu ordaysaa maxay yihiin? haddaad maanta lacag bixisid saddexdaa imaam oo kale sadaqadaadii ma asixin bay ku leeyihiin. haddaad laakiin طacaam bixisid afartoodu way isku waafaqsan yihiin inay kaa asaxday. maxaa khilaaf kaa gelinaya cibaadadaa? wuxuu yidhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sawmu ramadaana mucallaqun bayna الsamaa'i wاlard. bayhaqi baa wariyey xadiidka. waxaa la yidhi qariib weeye, laakiin xagga matniga waa ka fiican yahay, saxiix wey.
معلق بين السماء والأرض رمضان كي أي صوني مين هالكان الروحية لما كوريارو إلى زكاة الفطر قال بحيو مركز بشي أن صوني هذه صوم كذبة عن الكوريا لين زكاة الفطر اللي نفسه بعيو زكاة الفطر قال بحيو وأنت رمضان كان في قفتي هذه كان عبد حيو قفتي كان ما ننت عيدة يا يلا داف أحكامتي هذا وحكم من زكاة الفطر وإن أسيست أصنافتي إلهي وشاقي سجاد السنفية آية إلهي وشاقي إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية سجاد أساسيني سأنتي اللي هلك كرمربا هذا مساكينتي يا فقراء دواب التوريين كو أساسيني صدح كيرنا حكو تشوك سني محايا لي آية جمع بين آخر السنة للفقراء جمع فقير والمساكين جمع مسكين وي هل مسكينة يا هل فقيرة ما أنفعيسو وإنا تصدح على كيرين مركز حليس ذكرها وكربني هداك ابتدوا من حقاسي من الشواسي هداك لكن حقا سنضبكي حقا قفكي مقن وكم مقن ميشا وحوالك بحين ماي محيانا قفكا مقن وحا حق له زكاة الفديقيسة ميشا وجوغا مساكين تجوغتا حق له نقل الزكاة ما بنانا إمامك كريا نقل الزكاة بنانا مركا هذه حاسكاقي يا عروتادي ميل كلا جيران وهذا رواينا الخبر قاسي سيدو تيراني وكيل إيقان نقضو اسكب حية مساكين تأدين لدكنسية لكن مساكين أتانقا أدو مسين كتير أيقو نيروبي داس حتى تشوغا مسين كتير مساكين تذكر قفك لقب حنا يميشا وجوغو مسكين كتشوغا أيا لطينا أيا زكاة الفطر هذه كان نقل الزكاة باكا إيماني هذان لو ورقلي waxay noqonaysaa inay qadad kugu noqoto oo hadhow markii waqti aan la gaaro la iskiin waafajiyo aad dib u bixisid bay noqonaysaa adigaa lagaa rabaa inaad wakiila aday waajib kugu tahay islaamka waajib kuma aha adigaa la rabaa inaad amar siisid oo tiraa iska bixi markaas bay adiga wakiilkaa noqon kartaa ay bixinaysaa haddii kaleeto markaad is aragtaan intii sano meeshaad kaaga tagtay oo qadaa'aad masaakiinta yaad u jimlaynaysaa kolka zakaatulfidriga yaan la fududaysanin maalinkaa qofka miskiinkaa inuu farxadda kaga qayb galaa loo suubiyey intaan salaada ciidda la aadinna waa fiicanta in la bixiyo laakiin ilaa maalinka qoraxdeedu dhacaysa ciidda waqtigeedu waa joogaa ramadaanka iyuu naga cadilmin masaakiintana xoogaageeda ha loo hormariyo adigana ramadaankaagii si uu kugu meel maro u bixi haddaad badin kartid oo xataa inta la sheegay aad ka badin kartid waa fiicanta laakiin intaasaa lagugu leeyahay adiga haddaad bariis bixinayso ahla wasaal haddaad galley bixinayso gallaydiibaaba iska rakiis noqotayo waa ma aqaan dee iyada dadkaaba loogu kaalmaynaya aan lacagta haysanin baan maraynaya marka hala bixiyo zakaatulfidriga hala bixiyo lacagtana ha laga daayo marka ramadaankii iyo zakaatulfidrigii isku mar ilaahay si uu ilaahay inooga aqbalo subxaanahu wa tacaala intaasaan waxaan doonayay labadaa kelimo inaynu kusoo dhammaystirno haddii la yidhaaho haddii su-aalo yari ay ka jiraan ilaa saddexaan ka badnayn saddex ka badan waad ku daalayahay waa fiicanta waa suga ii dhiibay waraaq dhowr magaca ku yaallo wuxuu yidhi nimanba waxay yidhaahdeen qaadiyaashaan la iska maqmaqlo ayaa niman waxay yidhahdeen laaqsacaanood baa laga arkay baa yaa la soo tabiyey nin baan ka gatay buu yidhi hadda nimankan magacyahooda meesha ku yaala inta kale maanan garanin haddee taa waxa weeyaan laaqsacaanood laftiisuna mid ugu dhow maaha oo hadda meel saaran ma aha sidii loo kala qofka shuhuudda qofka noqon kara iyo qofkii kale iyo baaristii lagu samayn jiray iyo xukumkii qaadiga maaragtay uu xukumi jiray wixii oo dhanna fara kuma hayn marka bacdamaa ay kutirkuteen u eg tahay maanta oo dhanna aynu eegaynay waxaad moodaysaa arrintaa arrin aada loo cuskan kara inayan ahayn laakiin sheekhu waa ku mahadsan yahay wixii un bil ramadaan laga soo sheegaba hadduu la soo gaarsiiyo
شعب الرحمن وحوي ديني وحولي نمانكي بقار بان لو حيميني جرا ور ناغي waa iska biisha carruurtooda marka naagti carruurtii intaad biilaysay ninkii hadduu dhintay iyo hadduusan dhimanba biil lama siiyo waxna ma siiyo marka waxa weeyaan ninka unbaa lagu leeyahay hawsha waxa ay iyadu dhiibaysaa wax intay waajib ku noqdaan haddana zakaatulfidrigii baa lagu waajibiyey la odhanaya maaha waa ilmaheedu inay biisho waa fiican tahay laakiin asagaa lagu leeyahay hadduu waayo waxbaba laguma leh asagana waxba laguma leh carruurtana waxba laguma leh hadduu heli karana asagaa lagu leeyahay kolka gabdhahan hadda soo baxay oo ayagu ciddii oo dhan biilahaya bal waxa kale ha biileena zakada faraha ka qaaday zakada ninkii lahaa loo daayay su-aashu waxay tahay agoonta ma laga bixinaya zakaatulfidriga agoontu hadday xoolo leedahay waa laga bixinaya hadday agoontu xoolo leedahay waa laga bixinaya haddayan agoontu xoolo lahayn yaa mas-uul ka ahoo biila mar haddayan aabe lahayn habartu si ay waxayso ha bixiso sababtu waxa weeyaan agoonkani inuu aabe leeyahay buu habarta kaga fakan karaaye haddii uusan aabe lahayn islaantiibaa meeshii yaa qubayso iyadaa imaanaysa hadday wax leedahay halkiisa ila aabe lagu riixa ma ay laha agoontii haddii ayagu xoolo leeyihiinna qofna laga bixi maya xoolahooda unbaa laga bixinaya qofka nafaqadiisu waajibka ku tahay yaa bixiya hadduusan aabe lahayn habartay waajib ku noqonaysaa nafaqada ilmaheeda yaryoo agoonta xalana su-aashaasoo kale waa joogtay waa dhulkaas gaaladay joogaan matalan marka masaakiinba lagama heleen iisugaanaa joogtana kadib kuwa qaxootigaa oo tagay maantiiyo xogaaga xunkaa oo la siiyo waxba ku tari maayeen waa la heli karaa haddii laga heli karaa hala dhiibo haddii kale beledka ay joogaan beledka ugu xiga oo masaakiini joogto unbaa lagu dhexeenaya beledka ay joogaan oo masaakiinta laga waayay beledka ugu xiga oo masaakiini joogto naqlu zakaadkii si kaleto sheekh kuma banaanaan karo hadda xalana waa lay su-aalayay waxaa la yidhi australia lacag laga soo dhiibay nin culimada ka mid ah su-aalayay wuxuu yidhi zakadii nooga guddooma qoladiina utaanga joogtaa idinkaa liidataan zakadii nooga guddooma anugu waxaan leeyahay xogaagiinana iska qaata kowge laakiin waraaqu diro waxaad tidhaahdaa war zakadii iyo badankii waa laydinku leeyahay mar uun kale iska bixiyaa la yidhaha ama masaakiin kalea loo raadi imaamka keliya naqlu zakaad yeelan kara imaamka keliya hadda haddii nairobi iyo gaalkacyo iyo qofka jooga hadday suldaanka u dhiibaan suldaanku masaakiinta xamar joogta maahe kuwa boosaasi joogtuu siin karaa maxaa yeelay intaasoo dhan asagay hoos imaanayaan asagu naqlu zakaadka waa leeyi laakiin inagu naqlu zakaadku inooma banaana masaakiinta qofka laga bixinahayo meel kula nool taasaa xaq ku leh in la siiyo waxa weeyaan mar hadduu ninku nool yahay ama xabsi ha ku jiro ama meel kale ha ku jire zakada carruurtiisa asagaa laga qabaa hadduu heli karana ha bixiyo hadduu kalena maba lagu lexba hadda ka hor baanu nini ninku hadduusan waxaysan hadduu ilmihii dhex joogo xataa waxba laguma leh maxaa yeele maba heli karo hadduu asagoo cayra xabsi ku jirana waa lamid ma heli karo ayadana waajib kuma aha inay maaragtay korka laga saaro asagay waajib ku tahay iyadu ilmaha iska nafaqayn wallahu subxaanahu wa tacaala